halkan waa degmada Tuli Guuleed oo dhamaantiin wada garanayna oo ku tala dowlad deegaanka Soomaalida kadib markii la soo bandhigay khayraadka ay hodanka ku tahay sida heerda galiga sarreenka iyo waliba qaar kale oo badan degmada Tuli Guuleed ayaa bilihii ugu dambeysay waa qabsatay baraha bulshada ay ku xidhiidhaan Soomaalidu taas oo dhammaanba lagu hadalhayn badan ka dhalisay kadib markay soo bandhigtay bilicda iyo quruxda iyo wax soo saarka dalku leeyahay dad Soomaalida qaar ayaa ku tilmaamay inay tahay Ukraine geeska ama bas Ukraine Soomaalida balse Tuli maanta way ka duwan tahay Tulidii hore ee shalay toole ku sheegay Tulida maanta waxay noqotay goob dagaal ah waxay noqotay goob lagu dagaalamayo misana ay ku dagaalamayaan shacabka degmada Tuli Guuleed iyo waliba ciidamada Oromia degmada Tuli Guuleed kadib markay soo bandhigtay wax soo saarka ay hodanka ku tahay iyo dhulkeeda qaniga waxa isla markiiba soo hanqal taagay ama base damac weyn uu ka soo galay dowladda Oromia halkaas ay ku soo dalbadeen ciidamadooda liyu booliska walow dagaalku sanadadii ugu dambeeyay uu soo jiitamayay balse wuxuu dagaalku aad u xoogaystay bishan hadda ku jirno tobankeedii ilaa wixii ka dambeeyay degmada Tuli Guuleed waxay noqotay meel hoy u noqotay ama base waag ugu bariyo uguna dhaco dagaalka qumaca rasaasta iyo waliba qaylada iyo dagaalka sawaxanka dagaalka degmada Tuli Guuleed hadda wax caruur ah ama base dumar ah oo ku nool ma jirto dhamaantood waa laga soo barakiciyay waxa kaliya tooha goobta ku sugan waa raggii iyagu u dagaalamay dhulka ku sheegay waxa dagaalku sida toos uga bilaabmay waa ceelka marar oo shacabweynaha ku nool degmada Tuli Guuleed ay sheegeen inuu yahay ceelka kaliya tahay manafacsadaan ama base ay ka cabaan dhaanka iyo xooluhuba xilliga abaarta ama base jiilaalka oo aysan jirin meel kale oo biyo ka cabaan halkan waxa hadda ballan ku qaaday inaysan marnaba ka baxaynin ama base aynan ka tagaynin waa shacabweynaha ku nool shacabweynaha ku nool degmada Tuli Guuleed oo iyagu wacad iyo ahad iyo ballan ku qaaday ilaa kooda ugu dambeeya ku dhinto inaysan marnaba ka baxaynin balse goobta waxa ugu taal sheeganaya waa ciidamadii liyu booliska Oromia kuwaas oo raxan goobta loo keenayo lana kala badbadalayo kolba qayb cusub la keenayo balse ilaa hadda degmada Tuli Guuleed shacabweynaheedu ma haysta wax gargaar iyo garab istaaga kama haystaan xagga dowlad deegaanka Soomaalida iska badaa in loo gargaaro ama base la garab istaagay ilaa hadda wax hadal ayaa ma jiro dhaawaca waxa la geeyay magaalada Jigjiga waxaana lagu dabiibaa Referral Hospital saasoo tahay magaalada Jigjiga markaad gasho isma odhanaysa halkan ayuu dagaal ka socda ama base dadkeeda la xasuuqaya goobta ganacsiga iyo waliba meheradu sidooda ayaa u kala socdaan wax hadal ayaa iyo wax buuqaya mid damba maqlaysid sidoo kale dawladuna ma hadalhayso dadkan dhiiga iyo dhaawac isgaadhay ee qaylada iyo baroortu meel walba ka baxayso dawladdu ma hadalhayso waxaad weydiinaysaa talo dadka halkee ka tirsan yihiin yaase maamula yaase xukunka u haya su'aalahaas iyo su'aalo kale badan bay la hadda jawaabtooda lama hayo balse waqtiga ayaa ka sugaynaa inuu ka jawaabo